lagu garto dictatorka waxaa ka mid ah kow mar haddii awoodii dhaqaalaha uu dictatorka gacanta ku dhigo dhaqaalaha maxaa ka mid ah Soomaaliya waxaa la sheegay in shidaal la soo saarayo shidaalkaasina uu ka soo baxayo madaxweynaha xaafadiisa ama degan ahaankiisa hoose qabiilkiisa meesha uu degan yahay waxaa la sheegay hubkii qaranka Soomaaliyeed iyo la dagaalankii argagixisada madaxweynaha wuxuu ka dhigay beeshiisa ciidankii madaxtooyada Soomaaliyeed madaxweynaha wuxuu ka dhigay beeshiisa dhaqaalihii iyo mashaariicdii madaxweynaha wuxuu ka dhigay beeshiisa wuxuuna beegsaday cid alla ciddii uu isleeyahay qatar bay kugu yihiin oo beesha hawiyana waa beegsaday waxaad u jeedaan habar gadir barkicinta lagu samaynayo arkayseen ma ahayn dhulka in la gadanayo in xamar bay wax ku leeyihiin laga sifeeyo oo banaanka laga dhigaal ribwaan laga dhigo haddii marka intaasoo awoodaa qofka gacantiisa gasho dictatorka ah ummadda marka degaanka degan waxay noqonaysaa sida Jabuuti maanta bulshooyinka ku nool Jabuuti ee Soomaali iyo Canfar Ciise iyo Canfar sida loo bahdilay Canfarta loogana ilaaliyo madaxweynaha sidoo kale ciisihii dhaxdiisa ayuu si kala dhaxgalo jifada Ismaaciil Cumar Geelle waxaan ka ahayno nool ma jirto jifada Ismaaciil Cumar Geelle waxay haystaan khayraadkii dhulka oo dhan hadday dekada ahaan lahayd hadday mashaariic koronto ahaan lahayd asaga haysto dadkuna waxay noqdeen dad baaba'ay oo beerka dhulka ku hayo oo aan hadli karin mudaharaadkooda iyo awoodooda midna aan waxba ku challenge karin ilaa waa dad baahanay yuusaas ku sameeyay go'doominta noocaas oo kala beesha harti abgaal abgaal u dhalatay saasoo ku sameeyay wuxuu kala dagaalamay dhaqaalaha wuxuu kala dagaalamay wax alla wixii xil ah wuxuu kala dagaalamay wax kaste marka laga reebo qadajo cusub oo ka dhiga safiir oo dibadda joogto islaan ah ayaguna beerka dhulka ku hayaan buu ugu talagalay habar gadirna waa ka taqallus daaroodna wuxuu ka ilaalinayay madaxweynaha dhaqaalihii dalka shidaalka soo baxayna qabiilkiisa iskala saa gacanta ku hayo hay'adii maareynta masiibooyinka iyo dhaqaalihii dibadda ka soo galay asaa gacanta ku hayo madaxtooyadii asaa gacanta ku hayo taliska ciidanka madaxtooyada asaa gacanta ku hayo ma dhicin nin sargaal ah Soomaaliyeed ayaan wareystay oo ciidamada qalabka sida Soomaaliya ka tirsanaa wuxuu ii sheegay Maxamed Siyaad Barre oo kacaan ahaa weligii wiilkiisana staff kama dhigan wiilkiisana staff kama dhigan wiilu adeer u yahay ina Siyaad Barre dhalanay ama adeer u yahay madaxtooyada muusan keenin ciidanka madaxtooyada ilaaleed muusan dhiibin wuxuu samaystay ciidamada Jabuuti dadka lagu caburiyo kale jaadamriga ilaalada kacaanka oo kale uu samaystay wad ogtihiin taliska ciidanka gaarka ah ayaa socdo Soomaali waxa la rabaa marka dictatorkan saan intuusan awoodeysan in Soomaali laga hortago lana diido waxaan rabaa halkan fariin uga diro qorqorow amusnaantaada iska orodkaaga way soo dhamaanaysaa dadna madaxooda kuma gurgurtami kartid sharci daraad iskaga joogtay meeshan qabaa'ilaad wax isku darsadaan nahay galmudug ah waxbaan isku darsannay wixii aan isku darsannay haddii aad dictator gacanta ula gasho annaga inuu nagu gumeeyo doonayo waxaan ku dhawaaqi doonaa 15 May inaan gebi ahaanba galmudug wax la yidhaahdo aysan jirin ay baaba'day lana kala guuray waqooyiga galguduudna gees u baxay difaaciisana xirtay isaga oo isticmaalayo awoodaha uu leeyahay deegaankaas haddii aad dadka iyo deegaanka u turayso ummadda u nax ka soo noqo meeshaas ummadda waxa ay rabto waxay tahay habar gadir waxay rabtaa in ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud sharciga lagu soo celiyo